gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakoy oo maanta la hadlay bahda saxaafadda gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hubeysan ay u gacan galiyeen ururka al-shabaab sida wararka ay sheegayaan iyadoo labadii maalmood ee ugu dambeysay la hadalhayay gacan gelinta askarigaasi sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan dad loo soo qabqabtay falkaasi. bismillaahir rahmaanir rahiim waa arin muruga leh waa arin dhibaato leh askarigaas xoogga dalka Soomaaliyeed waa jirta ficilkaas xun qabiixada ee dhacay waa dhacay ficilkaas dad badanna waa loo soo xirxiray hadda u xiran yihiin insha Allah taala tilaabo sharcina waa laga qaadi doonaa waana la maxkamadayn doonaa habka ugu saxsan ayaa la marsiin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo askarigaasna gacan cadow ayuu galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu rajaynaynaa cadowgaasna badiidka inuu soo saaro qolada dambigaas geysatina insha Allah taala waa ku guda jirnaa waxna waa laga soo xiray waxna hadda dhulkii cadowga ay ku maqan yihiin insha Allah ma soo noqon doonaan haday soo noqdaanna insha Allah taala de tilaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadi doonaa haddii walaalow de amniga aan sheegayna waa de waxa weeyaan wax walba maqduur inta rahmaan ku dhacaan wadanka Soomaaliya ayaa dhibaatada ay ka taagan tahay warka inaad fahantaan loo baahay wadanka Soomaaliya dhibaatada ka taagan waa marka waa dhibaato anaga soo saamay. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka amniga Cabdiraxiin Taakoy ayaa waxa uu sheegay in sanadkan gudihiisa ay jiraan dagaalo lagu wado in ururka al-shabaab lagaga sifeeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 2019 ka howlgal guud ama xamlo guud ee dalka la qaadi doono taas marka dalka Soomaaliya ayaan mid kaga nahay insha Allah taala waa rajaynaynaa gobolka deegaanada dhiman degmooyinka deegaanada hoostaga ee dhiman tuulooyinka ama dhulka kaymaha ah ay nimankan ku dhuumaalaysanayaan in loogu gali doono meeshaas ay howlgalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sameyn doonaan insha Allah taala waa jecelnahay howshaasna waa lagu guda jiraa sida ay raboodka nagu siiyeen saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qaabilsanaa gobolkan Hiiraan 2018 iyo 2017 markii loo fiiriyo 2018 hormar la taaban kara ayaa laga gaaran oran karaa sidii xaaladda amniga horumarka isdhaxgalka bulshada magaalada waxay ahayd runtii magaalo aad u kala xirxiran dadkii waxaad malaysaa in ay dawladnimadii u talaabo qaadeen isdhaxgalayo dadkii ay midnimadii iyo wadajirkii ay soo noqotay dawladnimo lagu yaqaan. Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jamuuni JTV Beledweyne.